ummad qaranka Soomaaliyeed oo u taagnaa inay tayeeyaan ayaa maqan 3 sano iyo kalkoosay maqan yihiin mudana madaxweyne shacabka Soomaaliyeed waxay ka sugayaan caruurtii la qaaday oo la lusaday oo farmaajo oo lagu marar habaabiyay oo indhaha looga riday oo la yiri farmaajo anaga hadda waxba ka sheegaymeeno wuxuu yiri wadnow maxaa la boodboodaa liira wadna la weydiiyay mukaasoo wuxuu yiri wuxuu ma weelkayga sanbaba weelkiisa noqdo farmaajo nin xun ma ahayn waarna siyaasaddaas inaad bedesho waalidiinta shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ee Soomaaliya oo dhan ilmaha ka wada maqale haddaad caruurtoodii keento wixii dhintay xaqooda aad u keento shacabku waa ku taageeri doonaan salaatu salaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam isbeddelka dhacay horta waxaan maleynayaa Soomaalida inay ku qanacsan tahay maadaama waqti adag la soo maray waxaan leenahay horta madaxweynihii hore shaqo uu qabtay wax badan oo ku dheeray maadaama oo doorashadii oo waqti galiyay dheer maadaama maxay doorashadii laga rabay inuu qabto waqtigeedana oo qaban waayay maadaama sidaas ay dhacday haddana haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo fududeeyo waan ku faraxsanahay taasaasan ka leeyahay tan kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed Ilaahay inuu noqoto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay amarkiisa qaadato madaxda timaadana ay ku kalsoonaato maadaama madaxda timaado aan la ogeyn waxay la imaan doonto haddana maadaama ninkaan soo shaqeeyo uu yahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa inaan ku kalsoonaano waa inaan garab istaagno asagana waxaan leenahay shalay meeshii aad joogtay iyo sidii shaqada u qabanaysay si ka wanaagsan aad u qabataa laga doonayaa in ummadda Soomaaliyeed aad samato bixiso dhibaatada aad ka bixisid in kuwa dhibaataysan kuwa maxay tahay abaar ku dhacay kuwa maxay tahay coladuhu ay ku habsadeen maxay tahay garab istaagtid ayaan ugu baaqaynaa leenahay doorashadaasna waan ku qanacsanahay waxaan run ahaantii waxaan u maleynayaa xasan madaxweynihii tobanaad oo hadeer macnaha uu nasiib u yeeshay oo dalka macnaha maaragtay asigoo 2 jeer qabanaya xilka hadda ka horna xilka wadankan hoggaan u noqday wax badan buu ka bedelay wuxuu sameeyay in isku dar 2 gobol ninkii koow keenay way gobolada isku daray in Soomaaliyeed isku daray inkastoo markii asaga uu baxay wax badan ay goboladii uu isku daray ay ka qaldoomay hoggaankii uu qaldamay markii uu ka dagay asaga kursiga haddana waxaan u maleynayaa inuu sixi doono mudana madaxweyne xasan sheekh inuu sixi doono ayaan uga fadhinaa wallahi ballanqaadyada madaxweyne kasto ballanqaad waa sameeyaa laakiin intuu samayn karaa aad isaga yar waan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono sida ilmahan hadda Eritrea ku xayran 4 sano kullay on howl qaran bay ku maqan yihiin anigu ilama hadda inay qalad ku maqan yihiin maxay 4 sano 7,000 oo dhalinyaro ah maalaan kuma maqna oo ficlan waa wanaag bay ku maqan yihiin ee dadkooda inay soo bartaan marka hadduu soo celiyo waalidkooda u baahan waa loo baahan yahay inuu Ilaahay noo soo celiyo marka khayr badan baan aniga kullay ku tuumaya Xasan Sheekh Maxamuud مثلاً أنا تحسن شيء والبدن كبده ودانه دورشة وكذي أو حسن شيء عم تقولي سيدي بقول إذا كفراسنا إذا عن ضوايا فرماجي بقول إذا كفراسنا بقول المدحونا هذا ذلك ثلاثة هاي إن وسيدي شرب فرماجي لو معناه لو كان عصنا مد شعب كأوفر حسين إلا هو فرح حسنا bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid